bulshooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaad u baahan tihiin ubadkiina ku barbaarisaan Quraanka Kariimka idinkuna naftiina ku daaweysaan Quraanka Kariimka macadka Al-Qudus ayaa koobsaday barashada Quraanka Kariimka iyo waliba daaweynta Quraanka Kariimka darsigeena waxaan ka bilaabi doonaa aayadda 8 ee suurada Mudaththir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر kuwaasoo lagu daaweynayo dadka qurbaha ku nool ee qaarkood ay ka xanuunsanayaan kaasoo hab sharciya oo bilaasha si joogto ah lagu akhrinayo Quraanka Kariimka waxaana sanad dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban kuwaasoo la barayo barashada xifdiga Quraanka Kariimka iyo higaada luqadda Carabiga iyo asaasiyadka cilmiga shariicada Islaamka